Xabso hadday maqlayso, waxaan ka codsanaa inay iska kay cafiso. Xabso waxay ahayd gabar hadaf iyo horumar hiigsanayso. Xabso waxay dhigatay jaamacad ku taala Soomaaliya. Anigana waxaan ahaa wiil ka imaaday dalka Koonfur Afrika. Kadib Xabso ayaan isbaranay. Kadib aniga Xabso waxaan u soo bandhigtay guur, waxaana ka codsaday inaan guursado. Balse Xabso waxay iigu jawaabtay, laab jacaylow, aniga guur uma soo jeedo, waayo waxaan ahay gabar hadaf iyo horumar rajeynayso. Waxaana ka dhashay faamil danyar ah, waxaana doonayaa inaan garab istaago. Kadib aniga waxaan ku dhahay, Xabsooy, aniga waxaan ka imaaday Yurub, waxaana doonayaa inaan ku guursado. Guur kadibna aniga baxayo, adigana waad iga daba imaanaysaa. Inkastoo aan been u sheegay, haddana Xabso way i aamintay. Xabso waxaan ka codsanaa inay iska kay cafiso. Xabso way iga aqbashay guurkii, balse waxay i dhahday, xaas kale miyaad leedahay? Ama xaas kale amaad ila guursanaysaa? Inkastoo aan xaas iyo caruur leeyahay oo South Africa ii joogaan, haddana Xabso been ayaan u sheegay oo waxaan ku dhahay, wax xaas ah ma lihi, xaas kalena ma kula guursanaaye. Way i aamintay Xabso, wayna iga aqbashay wax waliba. Waxaan ka codsanayaa Xabso inay iska kay cafiso. Aniga Xabso waan isguursanay. Bilooyin markaan la joogay, aniga waan baxay oo waxaan ku laabtay dalka Koonfur Afrika, balse Xabso waxay u qabtaa aniga inaan aaday Yurub. South Africa markaan tagay, Xabso kama wici jirin lambarka South Africa ah, ee waxaan ka wici jiray WhatsApp-ka. WhatsApp-kana waxaa ku xirnaa lambar Yurub ah, oo markaan WhatsApp-ka ka waco, waxay u qabtaa inaan Yurub ka soo wacayo. Inkastoo aan South Africa joogo, haddana ayada waxay u haysataa inaan Yurub ka soo wacayo. Been ayaan u sheegayaa, balse ayada way i aaminaysaa. Xabso waxaan ka codsanayaa inay iska kay cafiso. Kadib Xabso waxay ii dhashay 2 caruur oo mataano ah. Kadibna Xabso markay ii dhashay 2 caruur oo mataano ah, ayaan kadib maalmo kooban kadib waxaa i fahmay faamilkii South Africa ii joogay. Kadibna arrintii waxaa sii ogaatay Xabso. Xabso waa ay qarracmatay. Waxaan ka codsanaa inay iska kay cafiso. Kadib Xabso arrinta markay ogaatay, Xabso way isoo wacday. Waxayna i dhahday hadal kooban oo ah, maxaad sidan iigu rafaadinaysaa? Maxaad beentii iigu sheegtay? Maxaad runtii iigu sheegi weysay? Maxaad faamilkayga u silcisay, anigana sidan iigu silcisay? Walaalow, haddii aad Ilaahaygaada taqaan, aniga adiga isma galne, faraha iga qaad. Kadib Xabso talka way igu dumisay. Ilaa iyo haddana Xabso talka igama qabato. Xabso waxay ii haysaa 2 caruur oo mataano ah. Xabso ciddeeda waa cid iska danyar ah. 2daas caruur oo mataano ahna way ku adkaanay inay koriyaan. Ma aqaan waxaan sameeyo, laakiin waxaan ogahay dhibaatada dhan waxaa ii keenay waxaa waayo naag beenaa lagu soo xerogeliyaa, runna waa lagu dhaqaa. Dhibaatada dhan mahmahdaasaa ii keentay. Waayo Soomaali haddaan nahay waxaan dhahnaa, dumarka been ayaa lagu soo xerogeliyaa, run ayaana lagu dhaqaa. Laakiin waa qalad arrintaas. Ragga iga dambeeya oo dhan waxaan u sheegayaa taas inay qalad tahay. Fikradda ah dumarka beenaa lagu soo xerogeliyaa, runna waa lagu dhaqaa, taas waa mid dumarka dhaawacayso. Waxaan idinka baryaa inaad dumarka ka daysaan beenta. Anigana waxaan ka codsanaa Xabso inay iska kay cafiso. Fadlan waxaan idinka codsanaa inaad